السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rajeynayaa inaad wada caafimaad qabtaan nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qof saaxiibka ahaan jiray oo ficil xun kugu sameeyay oo ku soo xidhiidhin kula soo hadlin adiga ku soo wanaajinin adigu la hadal wanaaji xidhiidhi ficil ku sameeyay oo uga falcelinin oo la ficiltamin wuxuu sameeyayna ha ku dayan adigu ka wanaagsano sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri oo kale qofka aad wanaaga u sameeyso ha ku faantamin oo hadhin qofka wanaag banu sameeyo qofka waxbaan u qabtay oo dadka ka oran qofka waxbaan u qabtay oo ha tilmaamin hadii adiga xumaan lagu sameeyayna dadka ku oran ninkaas xumaan bi igu sameeyay ama qofka bini aadamka xumaan bi igu sameeyay oo dacwad ka qaba ka oran labada shay qofka wanaagaad u qabato waliga ha ku faantamin qofka adi xumaan kugu sameeyana waliga ha uqtadaynin ama uqtad caloosha ugu haynin ama xasuusin xumaantu kugu sameeyay xumaantu lagu sameeyay ilo wanaaga adigu sameysayna ilo rahmatullahi wa barakatuh waxaan rajeynayaa meel walba joogto insha Allah inaad caafimaad ku joogto walaal waxaan ku sheegayaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam markii la keenay adduunka wuxuu waday xikmad ma sha Allah wuxuu ahaa addoon Allah uu doortay wuxuuna ahaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa kii khayrkana baray midkii diinteena noo soo dejiyay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa tusaale lagu daydo intaas oo makhluuqa adduunka ku nool oo dhan ay ku daydeen ma sha Allah ee muslimiinta wadigiisana raaceen haya adiga qof bini aadam oo bashara walaal ilaahay baan kugu dhaarshay noqoto tusaale lagu daydo xitaa hadii uu geeriyoodo lagu soo daceeyo wanaagii uu adduunka ku sameeyay darteed iyo sidoo Allah subhanahu wa ta'ala dadka ugu soo jeedin jiray iyo sidoo Allah subhanahu wa ta'ala dadka u jeclaysan jiray walaal waxa tahay bashar ku daya nabigaaga Muhammad sallallahu alayhi wasallam adduunyo aakhirana waliibaan doonta waliga hadayicin qof adiga ku danaynaya laga yaabaa inaad ogaato maalmaha kamida inaad dayacday dheeman adigoo ku mashquulsan ururinta dhagaxaanta si aadan u niyad jabin waliga ha iska dhaadhicinin inuu jiro qof adiga ka maarmi karo qofna kaama maarmi karo qof walba wanaagaagu raba dabeecadaadu raba akhlaaqdaadu raba diintaadu raba dhaqankaagu raba inuu ku daryeelo raba agtaada inuu joogo raba inuu ka ag muuqdo raba cidna kaama maarmi karto waa run ma tihid qofka adduunka ugu wanaagsan laakiin waxaad ka mid tahay dadka adduunka ugu wanaagsan sababtaas ayaa nagaaga maarmi kari assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh dareen shakhsiga u qaadan naxariisiisa macaan hadduu aqligiisa siiyo inaad doqonnimo u jeedo jacaylkana been yiraahdo ileen caashaq waa xanuun dulqaad muujiyo samre caanimo ceeb looma galo sidii qof aan dhannayn hurdada malada habeen miyaanad in yar dabcayn damiirkaagu waa sidee dayacni naftii heelane jirkayga inaan jarjaro adaa ibaday bukaan jacaylow maxaad ahayd ma mid la ii soo diro adduunkan iseejiyaad jacaylow ahayd ilaa nafsi baa cajiiba caawiyana waa nasiib waqtiguna waa adeega adduunkuna waa gelingelin aduu caashaqii daciibsaday anna mudan dabaaldegi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dadka hadalladooda marnaba dhig ha u dhigin waaye cidna adiga kuma noqon karto cidna adiga ma noqon kartid